Go. Maanta laga bilaabo Muuse Biixi xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya. Si waafaqsan qodobka 88 faqradiisa koowaad ee dastuurka sii socoshada xukunkiisu waxay ku suntan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo la isla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan go'aan ku gaareen qodobadan soo socda maanta laga bilaabo Muuse Biixi koowaad ee dastuurka tan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo la isla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan Muuse Biixi waxa uu aqoonsanahay madaxweyne xilku ka dhamaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacbiga iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye axsaabta mucaaradka ah waxay komishanka doorashooyinka qaranka dejiyay waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaal ah oo ugu soo horeyso doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland way ka soo horjeedaan mana aqbalaya xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dawladda ee sharciga ku fadhiya golaha baarlamaanka maxkamadda dawladaha hoose iyo maamulka adeegga dadweynaha bulshooyinka Soomaaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhamaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa uu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyay guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ahna diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalina xisbiyada mucaaradka waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka 123 faqradiisa koowaad ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn xaaladda waddanku marayo isla markaana si joogto ah u soo wargelin doonaan ulana socodsiin doonaan taageerayaasha tallaabooyinka xiga ee aynu qaadi doono marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas'uuliyaddeeda waxa iska leh madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday waxaan jeclahay muddadan na sugiseen 13 Noofembar filinay in dalka uu ka baxo warwarka iyo qalalaasuhu
intaan la gaadhin waxaa goortaan la soo gaadhsiiyey wakhtigaas annagoo in Somalilandii dhiiga loo huray loo gaajooday 30 sano adduunkan ka xidhneen inagu isku tashanay magac ku helay dadkeenu inagu taageersanaayeen ku midaysneen inaynu himiladeena gaadhno oo adduunka halkan kaga jirnay 60kii raad wadan madax banaan oo calankiisa helay ilaa inagu majiirtay dumaraadiyaan sameynay isku kalsoonidan sameynay tanaasulka iyo wada hadalada aanay shisheeye ku jireen gamceena aan Somaliland dambas ka soo saarnay oo dalka dhignay ee adduunka inagu majiirtay inay caawa aan ka dayriyo aad iyo aad baan uga xunay Somaliland Soomaaliya oo dhan gaashaanka ugu dhigay cadowgeena oo dhan in maanta gudaheeni dad aan u naxin waliba maanta maalinta ugu liidatay ahayd ee biyo la'aanta abaarta xanuunka dhaqaale xumaanta cadowgeena alowsan intaasoo maanta inagu wareersan tahay sunnahayna ku noqon ku soo noqon waan ka xumay horta marka hore waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland raalli naga ahaada anagoo biyadinsiin caafimaad idinsiin waxbarasho idinsiin layl idinsiin rajo ku nooleedeen in maanta layna daawado ilaa Somaliland suuga way qaxaysaa horta qarxi mayna insha Allah taala xumaan ma wadno wanaag ma wadnaa nabadna waa ku seexanaysaa insha Allah taala nabadna waa ku soo toosaan biidilaahi kariim marka go'aamadii aad naga sugiseen shacabka reer Somaliland iyo taageerayaasha dulqaadka badan leh hadda waxaa idin akhrin doonaa Cabdiraxmaan Sharaxa xusbiga wadani ku soo dhawaad